Ladies and gentlemen, welcome to Somali Star Online Training Protocol of the English Language. Bismillahirrahmanirrahim. Dhammaan ardayda dadweynaha Soomaaliyeed ku soo dhawaada barashada luqadda Englishka iyo Somali Star Online Training Protocol of the English Language and Tutorial. Ardayda iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed contact waxa la soo sameyn doontaan Gmail, Yahoo, Hotmail iyo waliba direct number. marka casharadii taxanaha ahaa oo aan ku qaadanaynay English language ayaa inoo soconayo marka primary English cashar ka mid ah ayaa ardaydii soo codsatay loo diri doonaa ardaydii kala duwaneed oo in loo kala saaro rabtay consonants oo shibana ah aan vowels iyo shaqal iyo shibane casharkii ku saabsanaa oo ay soo codsadeen oo emailka ardaydii soo dirtay Faarax iyo Jaamac nimanka la kala yiraahdo ayaa email u soo diray marka ardayda kamida waxay dheen macallin waxa noo kala cadeysaa vowel iyo consonants in la kala cadeeyo ardaydii jecleed ayaa maanta cashirkooda internetka loo soo gelin doonaa ayagoo kala duwan marka meel walba adduunka ay ka joogaan halkaas ay kala socon doonaan marka primary English ayaa casharadaas ugu soo qaata ardayda dhexdhexaadka ah buugooda kale ay qaadan doonaan marka sidaa darteed casharadeeni ayaa soo gudagalaynaa cashirkeeni maanta cashirkeena marka maanta prime consonants and vowels baan baran doonaa marka cashirkeena maanta markaan qaadano waa muhiim jiddan cashirkan waana sidaan u baran lahayn shibanaha iyo shaqalka primary consonants shibanayaasha and vowels iyo shaqalada sideen u kala arki karnaa oo maxay kala yihiin shibana iyo shaqal seesa loo isticmaalaa marka English language laga hadlayo cashirkeena ayaa soo gudgalaya marka use isticmaalida of a ereyga la yiraahdo an ama an ereyga la yiraahdo labada erey baan kala baranaynaa an wuxuu hor dhacaa vowelska eena wuxuu hor dhacaa consonantska marka waaba arki doonaa look fiiri at the following words adoo raacaya ereyadan raac marka ereyadan oo fiiri waxay u taagan tahay consonants wixii ah an waxay u taagan tahay wixii vowels ah marka vowels marka ereyada waa kuwan look at the following words adoo raacaya ereyadan bal fiir sidii u qoran yihiin loo soo diyaariyay unable tufaaxa an egg ukunta an inkwell qadda an ox dibiga an umbrella iyo dalada erayadan waa tusaalaha lagu soo qaatay erayadan marka waxay ku bilaabmaan shaqal waxa hor dhacday an oo maxay u hor dhici weysay hadda istiraado ayagii ayaa ku bilowday shaqal marka waxa imaanayo an baa imaanaysa ereyga maduu ku bilaawdo ama ay ku bilaawdo ama ku bilaawdo ama o ku bilaawdo ama u ku bilaawdo ama ay ku bilaawdo waxa markiiba imaanayo an baa soo hordhacayso marka ereyga kale oo shibanaha ah maxaa lagu words ereyada starting ku bilaabmo with a i o or ama u ku bilaabmo waxa hordhaca waxa imaanayo an baa hor imaanayso take qaado an qaado before ka hor them ayaga ereyadan ka hor an qaado as shown sidaan kugu tusnay above sidaan ku soo xusnay sadarada koro kale sida aan ku soo xusnay qaado ereyadaas a bet a dog a house a man a tree a bet feedmerta a dog eyga a house guriga a man ninka a tree geedka waa consonants waxay qaateen bay qaateen mar haddii ay qaateen waa consonants marka wixii consonants baa hormarayso wixii vowelana waxay qaadan doonaan shaqal iyo shibane saa ayaa loo kala qaataa marka haddaan ku arki doonaa halkan oo waxaan soo qaadanaynaa qalinka antaas waxay qaadanaysaa wax alaale wixii shaqala oo soo dhaco an baa ka hormarayso haddii uu yimaado consonants uu yimaado oo sida kuwaan oo kale waxaa imaanaysa baa imaanayso iyo an marka waxay kala qaadanayaan consonants iyo vowels kala qaadanayaan marka cashiradan oo taxanaha ah horey ayaan u sii soconaynaa cashirkeena horey u sii soco iyadoo cashiradeena aan ku baran doono protocol of the English marka haddii aan horey u sii socdo cashirkii kale ayaan u soo gudbay marka cashirkeenan kale maxaan ku arki doonaa marka cashirkeenan kale waxaan ku arki doonaa then those shown sida ku arki karno in the take qaado qaado before ka hor them ayaga erayadan ka hor bio kale ka hor ama as shown sida erayada horey u soo aragno kale kuwaan oo kale words erayada starting ku bilaabmay with letter others xarfaha kale consonants ku bilaabmaan iyo waxaa qaadan doontaa buu ku leeyahay before ka hor hortooda ayaa dhigi doontaa them ayaga as shown b sida b oo kale horteeda waxaa imaan doontaa kaliya exercise marka layligan ka shaqeyn doonaa arkeena
layligan ayaan wada arki doonaa right qor markaa ee qor or ama an qor before ka hor laakiin each of the following words ereyada hortooda ku qor sidaan oo kale meelahan ayaa gelin doontaa meelahan bannaan oo erayadan hortooda ama waxaa isticmaali doontaa an ama waxaa isticmaali doontaa e baa isticmaali doontaa ama vowel baa isticmaali doontaa ama shibana isticmaali doontaa ama shaqal baa isticmaali doontaa ama shibane labadaasaa ku isticmaali doontaa halkan marka right qor ee qor or ama an qor before each of the following words erey walba hortiisa ku qor a cup halkan marka cup baa lagu soo qoray mouse baa lagu soo qoray cup waa koobka mouse waa jiirka ama dooliga man waa ninka r waa falaarta door waa albaabka elephant waa maroodiga boy waa wiilka indian boy waa wiil india window waa daaqada eagle waa gorgorka old man waa ninda gaalna waa gabadhii marka hoos u soco halkan markaa joogtid hoos u sii soco oo erayadan horay ayaan usoo baranay waxaan arki doonaa consonantska wuxuu ka kooban yahay 21 p c d f g h j k l m n o p q r s t v w x y z waa 21 xaraf waa consonants vowelska marka a e i o u waa ayagana waa consonant waa vowels waa 5 kaas kaliya vowels ah marka cashiradeen imtixaanaha ahaa oo luqadda Englishka protocol of the English language iyadoo maanta aan baranay consonantska waxa uu yahay iyo vowelska waxa uu yihiin ayaa maanta la soconayna cashirka ayaa oo gaaban ayaan qaadanay cashir yar oo gaaban oo ah consonants and vowels inaan kala barano Somali Star Online Training barashada luqadda Englishka and computer management contact Gmail Yahoo iyo Hotmail iyo waliba direct number marka waxaa la soo xiriiri doontaan mar walba Fiverr-ka haddii aad doontaan macallinka waa ka heli doontaan iyo WhatsApp marka cashiradii barashada luqadda Englishka iyadoo waliba protocol of the English language la waafajinayo waa dhammaan ardaydii dadweynaha Soomaaliyeed oo jeclaa cashiradan inay ka faa'iideysan doonaan iyo ardaydii soo codsatay oo codsiga soo dhiibatay ardaydaas in cashiradan loo dhaxgeliyo cashiradoodii hore ay u qaadanayeen ayaa loogu raacin doonaa ayagoo maadaama ay soo codsadeen cashiradan oo ah in loo kala saaro shaqalka iyo shibanaha marka dhammaan ardayda iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo jecel casharada barashada luqadda Englishka protocol of the English language iyadoo aan laga tagayn waa injineer Maxamed Maxamuud Bare casharada imtixaanaha sidaa darteed waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa